magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya inteeda kale waxaa ka jira ururo dhalinyaro. Ururadaas ayaa inta badan waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada. Haddaba stuudiyaha maanta waxaa marti noogu ah gudoomiyaha ururka baabi'inta isma geyno Abubakar Cadow Cali ku soo dhawo barnaamijka bandhiga. Ku dhawaay waa mahadsantahay ayaale adiga iyo gudahaan bahda Universal TV. waxaad nooga warantaa ururkan baabi'inta isma geyno waxa uu yahay marka hore sharaxaad bal inaga sii. Ururkan sida magaciisa ka muuqato waa urur la dagaalamayo caadada dhaqameedka xun traditionka qariban oo lagu dulminayo qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo aan haba yaraatee wax dulmigaas loo tiirsanayo oo loo dileeshanayo oo caqli ama sharci aysan jirin haba yaraateena aysan macquul ahayn in sidaas loo dulmiyo ayuu ka hor tagaya oo uu dadka ka celinaya oo uu dadka ka baabi'inaya. Lama wada baabi'in karo laakiin xala magaca baabi'in waxa uu qaadan waxay tahay يعني وحال لها مركا إرك أرتب إنها تكتب وحال لها مركا عاتك إنها تكتب حديقها نمتقى يا الله حديقها عاتك أسكو اسمها مركا حديقها أنت أسعتد الليست عاتك بقارسة مركا أنكو هدفك إنه وحاوي إنه آد ويرنو مركا سي أن آد ويرنو وحان سوشاقني on قادني وأردينا إنا بابينو لكن إنه وذن بابين بقول له أقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرنتها إتحي وحكيم الجاهلية دي كفر عملية أو يعني قانم أو يعني عقيديا أنا هنا أو يعني نارت اللوجو وارن لكن ذنوب كبائر كمده ذنب حن أويه لكن هذا ومديسنا وحياة لو امتحان كمتها اسم جوجين دونين وحياة أسيور شيء خلات أسيور شيء إن دتكيسنا سمين دونان عم أيسن إن جوجين دون أي كمتها وحكم من خلات كاسكوات مساجد دكنا إن لقرحيو دينتهم وقلما بنانا هذا نوصل عشان ولا قرحين المساجد لكن آخر الزمن كقرحين دونتين ساسهم كلا أيتن يعني إنه جوكسين إنه شيء نبي صلى الله عليه وسلم يبصوا يحلمتك لكن هذا أنا كو waxaan ku tashanay inaan aad u yareeno marka si inoogu suurta gashay inaan aad u yareeno waxaan u ordaynaa inaan baabi'ino saas ayaa ururkeena loo asaasay oo u shaqeeyaa fakarka oo ka yimaaday in la sameeyo ururkan waxay ahayd fakar aniga shakhsiyadeeda igu soo maaxday aniga tan yaraanteeda ayaa maxaa la إيشك عن عباء فقوقها تكره ضد كل وسم هنا مركان مقال أنك حماة جريد ضد قارة وحيد عن محل هذا ما إحراس يكون ضد حيد هنا يقان حيد عن محل قبل ما تجاش ضد ما حر أنا بدها ميو أنا أبي وكسر الجيدة شباب ضد قارهان هذا يبغى قارهان بشارع الجود هويدي وحكسر الجيدة جبل وس قارهان حرمك صاحبتي حكسر الجيدة قرعل حقيقة سدحداس فورك كمدين dadka la heebsooca in point 5 kamidin sida la sheegay marka aniga horta wax lugaha ama raad toos oo leeyahay ma jiro laakiin shakhsiyan aan wax u sameysanahay in dulmiga naxbahay oo dhigi uusan adkeysan karin marka ka bacdi buugan qoray oo la yiraahdo sida qoyska oo aan muddo 5 sano qoray ayaan soo saaray 2017 bilowgeedii oo heegada saras gaaray oo 3 mar oo la daabacay sanad iyo xogaa gudeed sanad gudeed ku dhamaaday maxaa la ka bacdi buugi waxaan arkay inkastoo si fiican u soconayo in haddana uu aad yara wali aan wax badan ka tarin buugaas aan uga hadlo dhisida qoyska 12 chapter waa chapterka 8aad aan si fiican uga hadlay arrintaas jirtaankeeda iyo dhibaatooyinkeeda iyo sidii khalad u tahay oo aysan sax u ahayn waxaas aan uga hadlay chapterka 8aad oo la caqabadaha guurka afar caqabad aan ku sheegay mid kamid oo kan afraad u dambeeya aan guurka heebsooc ku sheegay caqabada afraad u dambeeya ku sheegay meeshaas ku faahfaahiyay chapterka ku xiga oo 9aadna waxaan ayadana aan ku sheegay
xulusha maxaa la lahaa sida solution lagu keeni karo arrintaas xaliyaasha loo heli karo oo aan ayaguna aad aan u cabiray oo policy makerska iyo culamaadiinka iyo dhaqmeedka iyo dadka la hibsan colaadkooda iyo bulshada Soomaaliya iyo kulligood recommendations iyo talabixin aan siiyey inkastoo laakiin Soomaalida tira dhiga leer u diray dhiga laab u diray marka buugaas inta aan uga hadlay oo xoogaana soconayay waxa isla wili way yartahay sababtoo in ka badan 12 milyan ayaa ku nool maxaa la jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliya meesha ka jirta shanta Soomaaliya ka jirta arrintan laakiin hadda jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta 12 milyan marka boqolaal buug oo 600 buug iyo waxa la mid ah oo yani aanan dhameyn maxaa la kun macala oo sanad kasta hadii 600 uu baxday iyo waxa la mid ah wax saas tari kana ma marka saas darteed waxaan go'aansaday inaan warbaahinta dadka adana ka wacdiyo uga sheegay khalad arrintaas warbaahintii TV iyo radio ayaa taas ka sheegay hadana wali inay siyartaan arkay oo hal qof iyo hala radio iyo TV dhowr mar laga hadlay bis aysan arrinta aysan ku fidnaan karin oo hool intaas ka balaaran iyo dad intaas ka badan ay u baahan tahay saas darteed asad team ahaan aan u jaho aan ku fakaray aan u sameeyay ururka baabiinta ismadiin wata marka ururkan muqdisho kaliya miyuu ku egyahay mise waxa jira meelo kale oo aad gaarsiiseen maya muqdisho uu ka bilowday laakiin kuma eka hadda members ka cusub oo soo kordhaya ay qaar ka mid qurbaasiga galbeedka ay ku nool yihiin gobolada dadan ay kana naga socodsana aqbalayna annaguna waxa waaye ururkanu NGO maahan NGO lacag lagu hala international donors ama maxalla bulshada caalamka fan looga raadsanayo oo in wax lagu cuno la rabo ma aha bal ma u maleynaya in lagu helayo sababtoo bulshada caalam anaka daas xuquuqniyadii kale ma kala jeclaan maleynaa bal inay ku farxdamaanay in dibka asgaarsiin in ayad xanuujinina oo maleena ay badan tahay waa mid labaadna waxay tahay maxalla aniga waxaan sheeganaa in wanaag ka shaqeynaa wanaag aan ka shaqeynaa waxaan ugu shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeed ana u shaqeynaa sheegay in dad kale inta waxaan ku shaqeyn lahaa aan ka doono yani sax maahanba in yani wixii heli karo aan u helo wixii aan heli karin ummadda kale hadda ka heli karo inta tabara ninba taagtiis ninba tabartiis room hal maalin ugu dhisan maalin waxaan sameyn karnaa sameeyno tartiibkan marka urur saasa oo maxaa la sheeg community based oo maxaa la local maxaa la international NGO ku xiran yahay oo fund siiyo oo project loo soo dhiibay oo implement gareenayo maxaa la advocacy oo loo soo sheegay oo meel la orday ma aha ururkan waa urur Soomaaliyeed Soomaaliyeed baada Soomaali ku dhamaada wata bulshada ka waran markaad u soo bandhigtay ka waran sidee ku arkeen bulshada walay saddex isugu jiraan waxay isugu jiraan qolo sideeda kale dulmiga nacab laakiin yar oo aad iyo la dareema aad markan ugu react gareynaa reaction fiican ka bixinayo iyo qolo maxaa la xogaa somehow credit ana ku yeeshnay maadaama buuggiga ama wax qabadkiga xagga maxaa la arrimaha qoysna dhowrka sano labada sano dambeysay aan yara firfircoonaa qaar arrimahaas inta arkay ama igu bagay oo ama buuggiga kala akhristaa ama wax la mid oo kale ama TV iga fiirsado kale oo buuggii igu cizaay oo xogaana raacsan ama aan raacsan laakiin ma akhrisanay aan toos ugu hor iimaanin oo la dagaalamin in heebso la dagaalamo aan la dagaalamin maadaama buuggii oo ka gadmay dadka badankood oo intii gadatay hala intii aragtay buug aan soo gudbiyay bulshada Soomaaliyeed academic ah buug unique ah marka la fiiriyo buugta laga qoray qoyska Soomaaliyeed ka qorto waxyaalaha unique leeyahay kamid tahay in academic kali aan qoray
interdisciplinaryna uu yahay oo isugu jiro maadooyin ay ka mid yihiin sociology, psychology, shareecada islaamka iyo public policy iyo public policy haddana buuggu uu yahay mid aada loogu soo shaqeeyey oo maxaa la muddo 5 sano aan qorayo isugu jiro intaas observations ama intaas dhinacaas arrimaha dhisidda qoyska ma dhisidda qoyska buuggu waxaa unique leeyahay kamid waa specialization uu leeyahay specifically oo uga hadla qoyska qayb kamid qoys oo dhan ka hadla laakiin buugta kale markaa fiiriso waxaa laga yaabaa inaa xasaawe iyo caruur tarbiyana labadaba ay ku qoriyeen ciwaanadiis kamid marka xasaawe waxaa la dhisid waaye caruur tarbiyana dhaqid waaye marka maxaa la kan wuxuu ku egyahay dhisid oo kaliya marka waxyaalihii dhisida intaas observations aan waday iyo maxaa la experiments ama tijaabooyin intaas aan sameynay iyo maxaa la Allahu musta'an daatooyin mararka duwan siyaal kala duwan dhinacaas dhisida qoyska uga aruurinay iyo experience dhinacaas dhisida qoyska intaas waqtigaas dhan juhdigaas inputkaas faraha badan oo culus aan geliyay haddana u raacsan tahay in dad badan oo culus ay saxeen oo ay ka mid yihiin professorada jaamacadaha dalka ugu sii badan kuwa jaamacadda simid oo ilaa in ka badan 5 professor oo jaamacadda dalka wax ka dhigaan ayaa saxeen buugan soo buug maxaa la aad ugu socdo bulshada maadaama noqday qolo waxaa jirta marka aad buugii ugu ciseysay oo markii social media ay ku arkaan waxaan soo dhigo khaasatan Facebook yani aanan aad ilaalin ama iga soo horjeesan iyo qolo saddexaadoo dagaal ba'an oo toosa ugala jirto uga soo horjeedo arrintan in laga hadlo qoladaasi tan ma igu bilaaban marka ururka aan sameeyay waxay igu bilaabatay markii aan buug qoraayay intii aan qoristiisa waday haybsooca aan qoraayay aan dad aan isu dhowna asxaab dhow aan nahay qaarkood aan la wadaagay qaarkood ay maxaa la arrintaas aad ugu biidideen muddo ugu haysteen oo la doodayeen tan hadeer socota marka dagaaladaas iyo diidmadaas faraha badan dadka tiradooda badan waxa aan u joojinayo iyo wax celinayo habeeraad ma waayo nabi sallallahu alayhi wasallam ala la yamnan ahadukum bimakhafati an-nas bi an yaqul haqqan idha ra'ahu aw sami'a bihi marka dadkaas hadlan weligood waxaan rajeynaa qaar badan ay kamid inaan soo wareejiyo oo meesha hadda heebsooc ay u doodayaan inay ka doodaan oo heebsooc inuu khalad yahay ay garowsadaan inaan ilaahay xaq oo tusuuso hanuun insha Allah aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka baabi'inta isma geyno Abubakar Cadow Cali waxa uu marti noogu ahaa barnaamijka bandhiga